nabadda waa lagu macaashay taliyo maskax baa la maalay nabadda waa lagu macaashay taliyo maskax baa la maalay dunida magacaygu gaadhiyo aqoonsigu gudoomiyaha gobolka gudoomiye ku-xigeenka taliyaha qaybta dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan ee halkan jooga shaqaale weynaha labada wasaaradood ee wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska iyo wasaaradda maaliyadda iyo ciidanka ilaalada cashuuraha ee gobolka dhammaantiin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib markood waxaa mahadla ilaahay marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa mas'uuliyiinta gobolka ee halkan maanta inoogu timi kulankanoo daaran in la dardargeliyo wada shaqaynta laamaha kala duwan ee dawladda isku xidhnaanta shaqaalaha iyo in meel looga soo wada jeedo oo laga wada shaqeeyo amniga sidoo kale inaynu ka fogaanno haddaynu shaqaale nahay in lagu milmo siyaasadda iyo wixii liddi ku ah qarankeenna in laga fogaado waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aad ugu mahadnaqayaan soo dhawaynayaa dhammaan gobolka waxaan ku soo dhawaynayaa ka wasaarad ganacsi ahaan kolley halkan malaa maaliyadduunbaa ina qarisay oo aad loo arkaaye halkan waxaanu sheegayaa dadka in wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska iyo ay ku wada jiraan maaliyadda mar gudoomiye shaqaalahan kala badh waxa weeyaan waa wasaaraddii ganacsiga laftooda markaa weliba xagga dhallinyarta u badan marka waxaan leeyahay haddaynu nahay dawladda wasaarad kasta joog ama meel kasta ka shaqeey waxaynu nahay hal unit ku salaaminaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan gudoomiye taliye waxaan idinku soo dhawaynaynaa oo halkan maanta jooga sidii ballankeennu ahaa shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda shaqaalaha wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska iyo ciidanka ilaalinta cashuuraha ujeeddada shirkeennuna wuxuu ka dhashay shirkii aad daadihinaysay ee ka dhacay gobolka saddexdii maalmood ee hore kadibna aynu ku soo kala qaadanay amaawiirta inaynu samayno shirar aynu shaqaalaheenna ku gaadhsiinayno waxyaabihii aynu ka qaadanay shirka oo ah sida tan go'aankeennu wuxuu ahaa shirarkii hore aan ku qaadanay aynu gaadhsiinaynay shaqaalaheennu wuxuu ahaa kow in laga wada shaqeeyo amniga shaqaalaha dawladdu waa asadiska dawladda aan xasuusnaano shaqaalaha dawladdu waa asadis dawladdu ay leedahay maxay tahay mas-uuliyaddoodu markaa qof kastaoo shaqaale ah qof kastaoo ciidan ah halka uu joogu ciidan ku yahay oo kaga shaqaynaya amniga oo ay mas-uuliyaddaasoo qaranku ay ku saarantah inaynu isgaadhsiinno o isku wacyigelinno taasoo aysa xasuusinno qodob bay ahayd dhammaanteen inaynu wada shaqayno hay-adaha dawladda khusuusan weliba wasaaradda horumarinta maaliyaddu dhammaanba hay-adaha dawladda ee guddoomiye aad hogaaminayso waanu u mahadnaqaynaa waxaan ugu mahadnaqaynaa waxaanu ka shaqaynaa waa dhaqaale sida fiican ay dhaqaalaha noola ururiyaan noola ilaaliyaan iyadoo aan ku hadlayo afka wasaaradda horumarinta maaliyadda aanu dhammaanbaa guddoomiye aanu u mahadnaqaynaa hay-adaha dawladda iyo ciidamada u gaarka ah ee ilaalinta cashuura iyo ciidanka taraafikada iyo dhammaanba ciidamada iyo taliyaha qaybsana aan ku daro in isagaa xukuma ciidanka qodobadaynu qaadani waxay ahaayeen qodobada amniga dhaqaalaha wada shaqaynta hay-adaha dawladda iyo iska wacyigelinta waxyaabaha saxaafadda haddaynu nahay shaqaalaha dawladda saxaafaddu way naga reebanta khusuusan hay-adaha ka shaqeeya dhaqaalaha waa gaar maxaa kaloo inaga mamnuuca waxaa kaloo inaga mamnuuca asxaabta qof kastoo xusbi ku jira asxaab ku jira innagu waxaynu nahay adeeg bixiye taxbayr buu inoo yahay marka inaynu qaadanno calaamad xusbi leeyahayna mamnuuc bay naga tahay inaynu tagno tictok iyo saxaafadda istaagno aanu ka hadalnana shaqaalaha dawladda markaynu dee asadis baynu laleeyahay iyaduna mamnuuc bay naga tahay inaynu isgaadhsiinno taa kuna wada shaqayno inagu hogaaminayo guddoomiyaha maamulka gobolka gudoomiye ku-xigeenka iyo taliyaha qaybta booliiska iyo dhammaanba maamulka gobolkuna madaxa aynagu yihiin oo aynagu hogaaminayaan iyo inaanu idin soo wada gaadhsiinno dhammaanba shaqaale weynaha qodobada inaynu soo gaadhsiinaba shirkanu uu ka dhashay uu daaranaa khayr allah siiyo oo ay codsadeen guddida nabadgelyada oo hogaaminayo guddoomiyaha maamulka gobolka iyo taliyaha qaybta iyo saraakiisha kale ka maqan hadirta inaga maqanba waxaan
daaran yahay kulankeennan maantu in la wada shaqeeyo ciidan iyo shaqaale dowladeed inaynu dhammaanteen noqonno one team ka wada shaqeeya horumarinta dowladdooda iyo mas-uuliyadda ay qaranka u hayaan qarankooda iyo dowladdooda u haya dhammaan ka wada shaqeeya oo one team aynu ka wada shaqeynaa loo baahan yahay dowladnimadu marka dalka la aqoonsaday cadow badan bay yeelanaysaa waxaa laga rabaa shaqaale iyo ciidan iyo shacbiga reer somalilan ama dadweynaha reer somalilan inay intii hore uga feejignaadaan dowladnimadooda iyo amnigooda amnigu waa raabasamaalkaynu haysanaa buu ka mid yahay haddaynaan amni haysan saaka halkan isugumaynaan nimaadneen mas-uuliyaddanu hayne ee ku magacaabanay amniga iyo cashuuraha iyo horumarinta dalkeennana iskamaynaan weydiin karneen marka waxa uu khudbaddan uu guddoomiyaha gobolka horkacaya uu kula kulmaya shaqaalaha dowladda iyo ciidamada dowladda ee gobolkan ka howlgala caasimadda labaadee jamhuuriyadda somalilan ee burco waxay daaran tahay oo keliya in la helo shaqaale iyo ciidan iyo shacabka reer burco oo one maana oo isku qof ka ah horumarinta amnigooda iyo horumarinta dowladnimadooda wixii xaalad ee soo cusboonaada waxaa laga rabaa ninka ciidanka ama qofka shaqaalaha dowladdahay ee cabasho ah intaanu baraha bulshada tegin inuu sharciga u maro madaxdiisa soo maro yidhaahdo halkan ka dacwooda laakiin aynaan meelo aan sharcigu inoo oggolayn aynaan markiiba gaadhin halkaas waxayna tusaysaa la odhanayaa ma dad aan tababar qabinba ma dad aan dowladnimada fahminba ma dad aan isku xidhin lahaynba ma dad aan madax lahayn baa layna odhanaya madaxda kale halkan inala joogta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu run ahaantii salaan dabadeed kulankeenani maanta wuxuu daaran yahay go'aan guddida nabadgelyada iyo isuduwayaasha gobolku ay qaateen oo ahaa bal in shaqaalahaanu isgaadho oo siyaasadda dawladda guddoonka gobolku wuxuu wakiil ka yahay sidii siyaasadda dawladdu ay uga socon lahayd gobolkaa la joogo waxaa ugu horraysaa wada shaqayn dawladdu waa cudwi keliya inay wada shaqayso dawladdii iskama hor timaaddo isukuma yooyo tuto t v ama baraha bulshada awaamirtay naga soo baxaysaa inay mid keliya noqoto inaynu dareenno maanta sidii hore ma nihiinoo sidaa taliyadii sheegayey dal dee la aqoonsaday baynu nahay inuu dhammaystirmana rajaynaya wax badan waa inay iska keen beddelaan heerkii hore aynu taagnayn wufuud baa inoo iman doontaa mashaariic badan baa inoo iman doontaa weelkii aynu dawladnimadii asalka ahayd ku maali lahayn dee kuwa laga doonayo marka gobolka la yimaado waa idinka ama warbixintiisa ama waxqabadkiisa iyo ilaalinta wasaaradda maaliyadda oo runtii buddigu ah dhaqaalaha dalka sidii loola shaqayn lahaa dhammaan wasaaraduhu waa inay la wada shaqeeyaan waxaa iyaduna taallaa wasaaradaha qaadaa dakhliga ama hay-adaha qaada sida dawladda hoose oo kale iyo maaliyadda ama ganacsigoo kale waxa weeyaan maaha in aynu wax kala jeedanayno waxani waxa weeyaan waa adeegii dadka bulshada loo qabanaya hadday liisamada tahay hadday tahay cashuuraha kale ee dadka ku waajibay ama macaashalmacaash ha noqoto ama faadkiiba ha noqoto oo ka bilaabmay gobolka waxa weeyaan dadkuna waa dadkeennii ganacsatadu waa ganacsatadeennii waa inaynu midaysnaanaa hay-adaha dawladdu waa inay meel uga soo wada jeedaan aanaynu inagu aynaan ku murmin wixii arrin sharci ah hay-adahay khusayso iyo haddii laga maarmi waayo guddoonka gobolku way geli karaan oo muran sharci wuu iman karaa iyo hay-adahaynu uga baahannahay ama xeer ilaalin ha noqoto ama ha noqoto xisaabiyaha guud ama odhad ha noqoto waxa weeyaan laakiin inaanay dabadda inooga soo bixinayno inagu waayo iminka liisamadii oo kale
wasaaradda ganacsiga iyo dowladihii hoose midba xeerku waxbuu u waajibiyey wixii u waajibiyey maaha inagu dhexdeedna inaynu ku muranno ama dadkii ay inagu wareeraan waa inaynu inagu ka wada hadallaa aynu inagoo dhammaynay dadweynihii si sharaf leh oo ixtiraam mudan oo aynaan inaguna mar walba xadhig adeegsane cashuuraha xadhig looma adeegsado inta badan waa in ninka bixin waaye mooyaane dee waxa weeyaan ninkii ganacsadaha ee kastamarka ku ahaa waa inuu isagu gartaa inuu keeno iyagana baaq baan runtii halkan uga dirayaa inay dakhligaa dawladda sida ugu dhaqsaa badan leh ay xereeyaan sidaa la socotaan dunida dee howlaha ka socda waa ogtiin sidaa daraaddeed inuu dakhligeenna isdhimo lama rabo ciidanka waxaynu ugu ballan qaaday lacag baa loo kordhinaya waa loo kordhiyey sanadkii horeynu kordhinay kanna waa la kordhiyey ka dambena waa la kordhin doonaa dee kuwa la doonaya inay soo saartaan waa hay-adihiina halkan taagan taasina aad iyo aad baan runtii idinku boorinaya iyadoo burco kor u soo kacday oo dhaqaalaheenni maanta wasaaraddu halkay nagaga xisaabtamaysay aynu meel wanaagsan marayno dowladda hoose laftigeedu kobac badan ayay samaysay waxaan rajaynayaa dadweynuhuna inay arkaan wixii laga qaadayey oo wax loogu qabanayo ku dheeraan maayo oo waa hay-aduna inagu soo socota 18 May oo qof walba laga rabo inuu u diyaar garoobo hadday wacyigelin tahay iyo hadday dhiirigelin tahay iyo hadday tahay inaynu dharkii iyo calankii iyo calaamadii iyo xamaasadii laynagu yaqaanay iyo maalmaha aqoonsigu yimaadaba number 1 dee inay shaqaaluhu noqdaanoo isu soo baxyada dee number 1 ay ka noqdaan sidii horeba ay idinooga ahaan jirteen waynuusan sii xusuusinayn wax weyn baan rajaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo oo dalka u soo socda wanaaga waxa weeyaan ilaahay aakhiro wuxuu inoogu sheegayaa waa rajo berri markaad dhimato jannaad gelaysaa haddaad sii shaqaysato rajogelinta iyo waxa inoo soo socda in madaxdu idiin sheegtaana runtii waajib bay nagu tahay waxaan idinku bishaaraynayaa khayr badan buu dalkani rajaynaya khayrka aynu rajaynayno weelkii aynu u talan lahay inaynu diyaarsanno iminka mashaariic badan baa ka socota gobolka biyo ballaadhintii baa ka socota dad badan baa waxay dhahaan maxaa laga qabtay gobolladii bariga dee runtii idinkoo shaqaalihii dawladda ah inaydin ogaataan wixii su-aalee laga qabo khilaafaad baa iman kara iyada meel baynu iska dhigno waxaynu nihi hay-adahay khusayso iyo waxaynu u gelaynaa si hoose yaanay baraha bulshada inaga gelin waxaan iyadana runtii halkan ka radinayaa wiiggan oonu bilownay derdergelintii iyo isku xidhnaantii rabadaan markaynu ka soo baxnaanu go'aansanay in shaqaalaha iyo madaxdooda in la istaabto la iska wada warhayo la wada shaqeeyo haddeer xal shalay baraha bulshada waxaan ku arkay MMTV oo xafiisyaha xidhan leh wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha halkan taagani waa kuwa 24 saacadood shaqeeya hadday gelin dambe tahay iyo hadday gelin hore tahayba